magaalada Hargeysa waxaa lagu soo gabagabeeyay tababar muddo 2 cisho ah u socday 30 wariyo oo ka tirsan warbaahinta madaxa bannaan waxaana iska kaashaday hay'adaha TSS, UNDP iyo wasaaradda deegaanka. Tababarkan ayaa warbaahinta waxa lagu carbinayay habkii ay uga warrami lahaayeen deegaanka iyo isbeddelka cimilada. waxaana soo xidhay wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare. Ugu horreynna waxaa roolka warbaahinta iyo tababarkan ka warbixiyay Nabil Yuusuf Cabdi oo loo qabtay saxaafadda qoladooda professionals kaamba ku talax tagay. ujeedada ay ahaydna waxay ahayd in lagu tababaro sidii ay u maxaan ku dhahdaayeen warbixin uga sameyn lahaayeen amba qaybta deegaanka warbixinooda u adeejin lahaayeen u xoojin lahaayeen taasoo methodology-ga hadday noqoto isbeddelka cimilada hadda socda xaalufka nabaad guurka ujeedada guudna ay kale noqonayso sidii qaybta saxaafadda loo xoojin lahaa oo afka qaraad loo yiraahdo maxaan ku dhahaa environmental professional reporting on environment taasina ay noqonayso inay saxaafaddu doorkeeda ay qaadato marka loo eego qaybta deegaanka oo in filayno dalkeenan inuu aad u liito bal marka inay saxaafaddu ay roolkeeda qaadato taasoo kale u baahan juhdi dheeraada sida tababaradan oo kale in la sii wado in la xoojiyo waynu aragnayo saxaafaddu ma report gareeyaan amba ma tabiyaan isbeddelka cimilada xaaladaha ay ku sugan yihiin deegaanku qaybta wararka marka uu yartay ma jirto marka ay inahaasi ay gasho oo la xoojiyo kullu mashruucan oo ka UNDP ahaan aanu ka taageerno wasaaradda ay iska kaashadeen oo ay tahay ujeedadiisu sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga bulshada oo saxaafaddu qayb weyn ka tahay tabinteeda iyo baahinta wararka ku saabsan si bulshadu ay qayb uga qaadato laxaad leh warbixinaha iyo xogta ku saabsan ku aadan deegaanka. macallinkii tababarka bixinayay oo ka socday TSS Peter Simwe ayaa sidoo kale waxa uu ka warbixiyay faa'iidada uu tababarkan u yeelan karo warbaahinta sidii ay uga warrami lahayd isbeddelka cimilada Somaliland. wariye Muuna Toosane oo ka mid ahayd 30 wariyo oo qaatay tababarkan ayaa waxay sharaxday macluumaadkii ay ka faa'iideen. waxyaabaha muhiimka ah tababarka aanu ka faa'iidnay waxa kamid ah ugu horeyn in aanu qoladii tababarkan siinayay anagu aanu isku raacno in arintan loo aqoonsado miiri ahaan iyo warbaahin ahaan inay tahay mowduuc muhiim ah si la mid ah sida dunida kaleba ay u yahay mowduuca ugu xasaasisan ee markaasi meel kasta oo aad aragtaba yaala. waxyaabaha kale muhiimka ah waxa kamid ahaa in la xoojiyo wada shaqeynta warbaahinta iyo cid kasta oo si toos ah saameyn amaba faraha ugu la jirta oo ka shaqeysa arintan deegaanka. waxa kale oo aad muhiim u ah aan uga faa'iidnay intii aan ku jirnay 2 cisho tababarkan si gooni ah doorka ay warbaahinta ka qaadan karto ka warramida arrimaha deegaanka in dadka markaas lagu baraarujiyo. doorka warbaahinta waxa la yiraahdaa wuu badan yahay laakiin maxaan dhahdayay afar baa ugu muhiimsan inay ummadda wax barto inay ummadda wax u sheegto markaasi ay ogeysiiso hadba waxa jira inay sidoo kale ay madadaaliso. imika waxa lagu soo daraa dunidan casriga ah inay rajo u abuurto ay ummadda inspirations u samayso. marka wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo iyadu soo xidhay tababarkan ayaa talooyin iyo dardaaran fartay wariyaashu sidii ay ugu gudbin lahaayeen bulshada xogo sugan oo ku saabsan isbeddelka cimilada. doonaya inaad fahamtaan oo 2 cashan aad dhiganaysaan horena aad uga shaqeyn jirteen isbeddelka cimiladu maxay keentay dhibaatada ay keentay isbeddelka cimiladu adduunka oo dhan ku keentay maaha inagu kaliya adduunka meel aan ku keenin ma jirto laakiin inaga maxaa inoo gaara inaga waxba inoo gaara inaga dalahaan waxba inoo gaara waxa inoo gaara horta halka maxay tahay cimiladeenu inaga maxay tahay ma dhul waxa weeyaan roobka inta ku badan yahayba ma waxa weeyaan dhul desert ma dhul labada u dhaxeeya Savannah ama arid ansima aridland yani markaad eegto halkeenu kaga naala inagu waxaynu nahay dal la yiraahdo ama lagu tilmaamo arid ansima aridland waxa weeyaan dhul qarfa oo kala
oo qarfahaasi waxaan u noqon karaa roobuu ku da'aya laakiin roob ku filan ayaan ku da'aynin marka inagu berigii hore waxaynu ahayn dalalka waxaynu ku jiri jiray roobku ka da'o laakiin marka maxaa yareeyay sanadahan dambe oo dhan maxaa roobkii naga yareeyay waa dhirtii bay naga tagtay xaaluf bay nagu dhacay shaygu waxa weeyaan geedkaasi shaqo kale ma hayo ilaahay halkaa inoo dhigay ee siidkaa yar ka baxayaynu harsanayneenu cunaynaynu wax ka guranaynaynu yacni waxa badan inoo taraaya maxaa inaga muxuu inoo taraya geedkaas wuxuu inoo taraya iminka haddaan saa u eegaan qiyaaso jiridda halkaa geedka ugu soo sokeeya jiridiisa haddaan saa iminka u eego intay ugu yeer tahay 5 qof oo halkan fadhiya ayuu hawada u safaynaya 5 qof oo inaga mid ah ayuu u safaynaya jiridiisa markaan iminka eego ama 6 qof ayuu u safaynaya uu ka shaqaynaya habeen iyo maalin sidii hawadiisa ugu safeeyo waayo adduunyada iminka waa arkaysaan oo carbon monoxide iyo emissionskii oo iminka baabuurta xaggooda dambe deynta waxbaa ka baxay ayaa iminka arkaysaan sida ay tahay haddaba inaga xaalufka inagu dhacay ina waa xaalufe ama dhir ha ahaado ama baadkii hoose ha ahaado ama ciidii oo iyaduna nafaqo beeshay ha ahaatee xaaluf baa laysku yidhaha xaaluf bay nagu dhacay geedkaa markaad goyso hoostiisoo dhan wixii ku jirayna way socdeen ciiddii way carartay nafaqada lahayd meeshii roob baa qaatay marka bal iminka isbedelka cimilada ee aynu inaguna ka mid nahay ee dadkeena aan maskaxdooda xagga dambe kubaba jirinba waxba isbedelayba magaalada iminka dambe ka socotay isbedel waxba isbedelay waad iska dhex socotaa hawlahaagi waad iska wadataa eegiba ma si talo maxay isbedelay laakiin waxaad ogaanaysaa marka la yiraahdo caani baa la waayay cadki baa la waayay waa maxay neefka sidani markaasaad dareemaysaan biyo la'aantan waa maxay inagu dhacay waa maxay biyo la'aanta biyo baa yaraade booyadii baa la waayay waa dadka booyada ku dhaan inoogu dhaamiya ama la yiraahdo 4 casho mar bay hargeysa biyo u soo dhacay markaasaad ogaanaysaa inay wixii jiilaalay noqotay wixii oo dhan isku yaaceen laakiin maxay idinka leedinka baahan yihiin idinka marka aad report garaynaysaa ee aad reportingka samaynaysaa ee warka duubaysaan waxa leedinka baahan yahay inaad ka baaraan degtaan warkan aad sheegayso ee xagga ku saabsan cimilada ee ku saabsan xagga deegaanka inaad si wanaagsan u sharxadaad dadka u gaarsiisaan Ibrahim CBA Hargeysa